سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا. codkaaga haddii aad la baaqatid waxay la macno tahay adoo u codeeyey dadka annaga naga soo horjeeda ee cunsuriyiinta ah ee sanadkan ayagana tartamaya. Fadlan isku day inaad codeysid. Mahadsanid. haddii aad codayn weydo wax saameyn ma yeelanaysid, laakiin haddii aad codayso waxaad noqonaysaa qof saameyn leh. go'aanku gacantaada ku jira. codee si aad saameyn u yeelato. haddii alla ka dhigo anigu waxaan ka ahay musharax oo waxaan u tartamayaa waa markii labaadan u tartamo. horena waxaan 4 sano ugu dambeysana arrinkan shaqadan waa soo waday oo khibrad baan runtii kusoo yeeshay. waa shaqo culus runtii una baahan yani maxay ahayd dulqaad fara badan iyo karti fara badan. 4 sano ugu dambeysay runtii khibrad badan baan kasoo qaatay dadkan finishka qaabkay u fekerayaan iyo qaabkay maartay siyaasadda u wadaan ayaa runtii si fiican u fahmay. maadaama dee aan saas daraadeed waxaan codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed ajaanibta weliba khaasatan walaalaha Soomaalida oo ulu degan inay codkooda la baxaan oo ay codayaan haddii la ka dhigo. sababtoo ah waxaan ahay runtii khibradna u leeyahay siyaasadda 4 sano la soo dhaafayna maxay ahayd toy qof yani luuqad ahaanna wax iska celi kara oo dadkan dee maxay tahay luuqad ahaanna wax iska celi kara karti ahaanna wax iska celi kara nahay. saas daraadeed qof walba Soomaaliya oo gobolkan degan waxaan rajeynayaa haddii alla ka dhigo inuu codkiisa la baxo. kale waxaan inii sheegayaa gobolkan hadda waxaa kusoo batay cusurnimada sabab badan baana keenay. sababahaas waxaa kamid ah yani waxyaalahaas ka dhacay 2 sano la soo dhaafay sababteeda. saas daraadeed xisbiga la dhaho Bersua Malaysad aad buu hadda usoo kacay sida hadda runtii horkacaya maxay tahay xisbiyada inay ku guuleystaana aad bay ugu dhow yihiin. qofkan hadduuna codkiisa la bixin uuna codkiisa kala caajiso runtii waxay la mid tahay sigoo cunsurigaa siiyey. ta kale waxaa soo socota dowladdu waxay kusoo wareeji doontaa haddii alla ka dhigo sanadada soo socda awoodaha inta badan waxaa lagu soo wareeji doonaa haddii alla ka dhigo gobolada. macnaheedu waxaa weeye xisbiyada ama golaha deegaanka ayaa maamuli doona wax walba oo gobolka ka dhacaya ama caafimaad ha noqoto ama ha noqoto yani iskool ha noqoto ama ha noqoto dad yani dadka ajaanibta inta la keenayo gobolada ha noqoto ama ha noqoto dhul la gadarayo yani dhulka tusaale ahaan oo haddii rabto mustaqbalka haddii rabeen masaajid la dhisto dhul la gato go'aanka waxaa iskale golaha deegaanka iskale. saasoo kale meelahan sportiska saasoo kale meelahan carruurta lagu xanaaneeyo waxyaalahaas oo dhan awoodda inta badan waxaa lagu soo wareejiray wax la dhaho maakunta oo macnaheedu yahay yani gobolada lagu wareejiray. qaabka loo codeerayo intaan xoogaa ka dhaho qaabka loo codeerayo waxaa weeye qofku haddii uu joogo 2 sano waddanka oo laga bilaabo maalintuu iska diiwaangeliyey xafiiska magistratiga ama xafiiska diiwaangelinta maalintaa laga bilaabo hadduu 2 sano waddanka joogay xaq buu leeyahay inuu codeeyo. qofka dhalashada leh saasoo kale laftigiisu xaq buu leeyahay inuu codeeyo. qofku waa inuu qaangaar yahay laakiin waa inuu 18 sano jira. waxaa kaloo muhiima markii la codeerayo meelaha lagu codeerayo waa inuu qofku lambarka waa inuu lambarka sidii loogu talagalay u qoraa una yani una xariijinta dhaafin iyo wixii lamida. maadaama ajaanibta waxaan maleerayaa hadda gobolu waxay degan maleerayaa 6,000 iyo googo ayaa degan. soomaalidana waa dadka ugu badan bay yihiin ee lagu xisaabtamo gobolkan runtii Soomaalida haddaan khaasatan Soomaalida waxoogaa wax ka idhaaho aad baa looga helay Soomaalida. waa gobolka ugu horeeya u maleerayaa la dhaho yani dadka Soomaalida waa dad yani shaqaysanayo socorayo wax barto yani ordaya. saasaan rajaynayaa Soomaalida inuu kusii wado
tusaale ahaan gobolada kale lama mid yihiin dembiyadu aad bay ugu fara badan yihiin Soomaalidu samayso inagu laakiin alxamdulillah waxyaalahaas aad baan maba jiraan ba haddii loo fiiriyo ajaanibta kale kadib Soomaalidu waxaan rajaynayaa dadaalkan sidii insha Allah in sidaa loo sii wado haddaan hadalka soo koobo yacni waa 26 ee bilaabmaysa codayntu ilaa 8 bisha 3aadna way soo horeysaa qof walbana codkiisa una la jiifsanin wax walba oo dhaca codkaaga haddaa la jiifsatid waxaa la mid tahay adoo cunsurigaas kaasoo horjeeda dhinac walba ku neceb runtii inaad maartay adoo siiyey بسم الله الرحمن الرحيم مانتا waxaana soo booqday musharax xildhibaan Jamaal alxamdulillah waxaan rajaynaynaa in Ilaahay ku guuleeyo maadaama sanadkii hore ay aad ugu dhawaa inuu maaragtay soo baxo waxaan rajaynaynaa maadaama dadkiina ay ka bateen intii hore inuu ku guuleysto sanadkan aan rajaynaynaa insha Allah waxaan rabaa marka inaan la hadlo dadka maxaa la yiraahdaa Soomaalida ah ama dadka ajaanibta muslimiinta dhammaan ogow codkaaga waa muhiim meeshaan waxa lagu kala baxo waa cod waa inaad codkaaga bixisaa ugu heelisaa qofka walaalka ah si birito insha Allah maxaa la yiraahdaa hadii wadamadan kama jirto maxaa la yiraahdaa inuu qofku kaligii iska qayliyo waxa wax lagu qabtaa xisbi waxa lagu qabtaa wadajir marka qofkan xildhibaanka ah waxa uu ku hadlaayo ama waxa uu ku duulayo waa dadkii uu metelay maadaama codadkii iyo dadkii uu metelayo uu wato waxa la wixii u baahan tahay waxay noqonaysaa meel loo dhaxmar dawladda insha Allah waxaan rajaynaynaa aan aaminsanahay insha Allah biidnillaahi kariim inuu Ilaahay ku guuleeyo insha Allah taala ma santa macallin dadaalka wado waa kaaga mahadcelinaya sidii bulshada aad codkooda u soo gudbinaysid haddii aan barnaamijka sii guda galo waxaan ku baraarujin lahaa Soomaalida degan Oulu inay sanadkan ay walaalkan Jamaal u codeeyaan runtii waxaan aaminsanahay in nin wax badan qabtay asoo xildhibaan ahaynin uu yahay hadduu xildhibaan noqdana in inta uu qabtay ka badan uu sii qaban doono la yiraahdo marka waxaan jeclaan lahaa in sanadkan la iskaashado codka la siiyo Soomaalida Oulu sida aan ka warqabno dhinac kasta waa isaga xiran yihiin tanna inaan ku darno inaan ku midowno isla markaana aan codkeena hal meel isugu geeyno insha Allah bismillahir rahmanir rahiim horta dhammaan dadka aad baa u salaamayaa xildhibaanku hadalka isaga dhimiyay doorashadan waa doorasho aad iyo aad muhiim u ah oo loo baahan yahay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee codeyn kara inay ka qayb qaataan dadka codeyn kara isagoo codeyn karaan xildhibaanka inoo sharaxay lambarkiisa isaga sheegay xildhibaanka runtii waa nin aad khibrad badan u leh oo muddo 4 sano ahaa xildhibaan ku xigeen golaha deegaanka sida looga shaqeeyo afaarihiisana aad ugu fudud dhammaan waxaan markaa rajaynayaa haddii uu soo baxo insha Allah in wax badan isbedeli doonaan runtii wuxuu inoo sheegay hadal aad inoo qanciyo oo ah dadka wax kasta looma ballan waxaasan qabanaya lama yiraahdo markaad meesha tagto soo baxdo umbad wacyiga iyo meesha ka sheekaysaa marka waan ku bogaadinayaa insha Allah arka isaga inuu ka hadlay sida daraadeed waxaan mar labaad ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed inay aad u codeeyaan oo waliba dadka Soomaaliyeed dad isku xirxiran way hadda marka laga hadlo oo qoysas isku xiran aabihi hooyadu inay xil iska saaraan inay gurigooda wada codeeyo dadku wada codeeyaan marka insha Allah saasaan salaamayaa ما شاء الله مشرح قدر آد أصل وينا ومركي لبعض 4 سنة كهر هو ترتمي بس وحلا الله وقاضي عدير وصل كان وحرجينا إنه آد أبدا إنه هلو قربيزة تجناه وحرجينا إنه إردها قرقرعنه صومالي أصبحنا عن مصير كنا ذلك أقولنا صار مرتي أوكي صنو هذه مسلم أنصحنا وحلا منتهي أنا يوصينا سوريين تعتك ساس درادي مركز صومالي ده حقوق باقيا يدك سوقلوتي إنه عضيان كان والكنا وآد صومالي قدام كرب تجن waxaan u rajaynaynaa inuu mar laba rafiic ku soo bixi doono wabillahi tawfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة وناسين أيها الله الرحمن مسلمين وحا بيان كان ما أنت كمان سوي شيء وحوي إن ولكن جمال حلبان الله عضية قد بدل الصوماليات بدكن قبل كان مركا وحا رجينا إلا الدلالة وإلى اللحية لواتن كبشان شناد إلى يسديد بش اللحية مركا ولكن عدك بسيء له هيليو أنا عدك عقد لا سحته وحكي هي إن قف سوريا عدك عقسيسي مركا وحا رجينا دمان إن كفاية سنة ولكن إن صار السلام عليكم.